waa markii ugu horeysay ay timaado Soomaaliland xukuumad ay ka go'an tahay inay dadkeeda wax la qabato. tababarkan oo wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland u qabatay garab raratada ama macdanleyda yaryar ee deegaanka Shirwac ee bariga magaalada Boorama ayaa ujeedadiisu ahayd mid kor loogu qaadayo tayada iyo badbaadada dadka leh wax soo saarka macdanta iyo cilmiga ay u leeyihiin si loo helo wax soo saar dahab oo waara. tababarkan oo socday muddo 6 maalmood ah ayaa waxa maanta soo gabagabeeyay isla markaasina agab loogu talagalay hawlgalka macdan qodista u qaybiyay ka faa'iideystayaasha tababarkaasi wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Axmed Jaamac Barre waxaana ugu horeyn madashaasi hadalka qaatay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay casharadii kala duwanaa ee lagu baranayay tababarkaasi muddada uu socday Professor Cabdiqaadir Xirsi oo ah khabiirka bixinaya tababarkaasi. waxaanu bixinaynay tababar kooban oo aan ugu talagalnay in lagu tayeeyo badbaadada dadka wax soo saarka macdanta leh ama badbaadada qofka oo safety-gu ugu horeeyo iyo in kor loo qaado cilmiga geology-ga ay leeyihiin si loo helo wax soo saar dahab oo waara. halku dhiga wasaaraddu ay soo gudbisay tababarkan kaas oo marka shalay alxamdulillah rabbil caalamiin iyo wacyigelintii ku horeysay maalinta ayada hore waxaanu qaadanay 3 shay oo waaweyn. waxaanu qaadanay badqabka qofka macdanta qodaya maadaama macdan qodida ay ku xiran tahay qof fayow oo caafimaad qaba oo ka bad qaba 2 shay oo midna yahay physical oo dumidii iyo wixii soo dhacayay iyo dhagaxii iyo jiiridii ay la mid tahay waxna uu yahay chemical maxaan ku raacay reaction ka dhaca mawaadda sunta la isticmaalo. waxaan isla garanay mawaadda sunta la isticmaalo shalay oo dhan oo sharxaynay inay aafo ku tahay qofka bini'aadanka inay aafo ku tahay bulshada inay aafo ku tahay bii'ada. marka barnaamijkan gudbinayna kaas oo 3 ka kooban macallin wasiir alxamdulillah rabbil caalamiin soo dhameeyay oo gabagabeynay waxaanu ballan qaadnay anagoo idinkeeda metelana inta in ka badan inaan hadii maantay beekada leh wasaaradda ka helayaan wada shaqayn joogta wasaaradda la yeelanayaan xiriir wasaaradda yeelanayaan baahiyahooduna wasaaraddu wixii ay ka awoodo hadii maantay beekada leh soo guddo wasaaraddan ay la soo socodsiiyaan hadii maantay beekada leh kolba waxa ay hayaan iyo dhibaatada taagan. inta kadib waxaa madashaasi hadalka qaatay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Axmed Jaamac Barre waxaana uu tilmaamay inay ka wasaarad ahaan diyaar u yihiin sidii garab loo siin lahaa garab raratada ama macdanleyda yaryar. runtii waxa weeye hawshan waa hawl bilow ah maalintii dhaweyd furitaan bay ahayd maantana waxaynu joognaa xidhitaanku ma aha uun maanta inaynu halkaa kula tagayno laakiinse waxa weeye mustaqbalka sidii aan u soo wada shaqayn lahayn ayna dariiqeygii jaaxayn adigu tusaale ahaydeen tusaalahaas hadduu guulaysto Soomaaliland oo dhan baanu sidaa ku wadaynaa waxaad haysaan inaan wax ku darno baynu u nimidna halkan waa haysaan inaan wax ku darno wax soo saarkaad qayb ka tihiin inaan anaguna kobcinno ujeedada wasaaraddu tahay wasaaraddu danta ummadday ka mas-uul tahay dowladduna ummadda oo dhan bay ka mas-uul tahay wasaaraddu gaar ahaan waxay mas-uul ka tahay dadka macdanta qodaya مسؤوليات gaar ah ka saaran badqabkooga مسؤوليات baa ka saaran wax soo saarkoogii waxaan soo saaraan in wax lagu darano مسؤوليات baa ka saaran مسؤوليadaasna nafartay maanta inaan halkaadii ku nimaadno oo idinla soo qayb qaadano furitaankii xiritaankiiba waxaanu maanta soo daafurnay xafiis oo loogu talagalay markaa wada shaqayntiina inaad ku xidhnaataan baahidiina halkaa u gudbisaan hadba tababar waxa u baahan tihiin halkaasi la idinka caawiyo xiriirka wasaaradda uu markaa xafiiskaasi iyo idinku asku keen xidho runtii waxa weeye walow qorshaha noogu jirta anaga ka wasaaradda ahaan inaanu soo daadejino shaqada gobollada ka socota inay gobolka ka socoto awoodda saarno gobollada macdantu ka socoto si caqli ku jirana looga faa'iideysto macdanun ma aha gur laakiin si caqli ku jiro in looga faa'iideysto sida caqli ku jiro waxa ka mid ah markaa inayn sunta ummadeenna waxyeelaysa inaan ummadeenna iyo xoolaheena iyo hantideena ayna ku burburinin waxaan soo saarayna waa kobcinaynaa waa ugu dhiirigelinaynaa sunta laakiinse cidna ku dhiirigelin mayno qof kasta oo Soomaaliland joogana magac ka tahay waxaan rajaynayaa in maanta hadii halkan ay ka samaystay iskaashatada Shirwac inay halka ku koobnaanin idiga latiin khabiirada noqotaano intaad casharkii isticmaashaan ummadda kale ugu faa'iideysaan. waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.